عليكم ورحمة الله وبركاته. سدوا أصحاب قالقة من كستأذن كجوكتان قصدنا مانتي وحي كدعدي دلك فرنسيسكا وحي كدعدي قبل ليلة هذا كريمة أو دارتي دلك فرنسيسكا ما شاء الله. كريمة وحي لنا وليد هويدي أبيهد وحي لنا دارتي لحويل أو ما شاء الله تبارك الله حوق شعيل وحي هيد قبل ريرك أوير ما شاء الله مركي لما يصير وحبر الشديد ما شاء الله. هويدي يا أبيهد مركي ويناتي وحقا لقاتي ويدنتين مركي وحبر الشديد لما يصير ayaa waxa dhacday waxay la nooleed walaaladeed oo ma sha Allah wada guriga leh oo wada guursaday waxay ahay gabadh xoog u jecel yihiin walaaladeed oo ma sha Allah ugu yarna reerka ma sha Allah waxa dhacay inay gabadhii markii waxbarashadeedii dhamaysay ay tagtay gobol kale oo ku nooshahay gabadha adeerkeed dhalay ay ku nooshahay gabadha adeerkeed dhalay ay tiri waan tagayaa walaaladeenna oo u yeeleen okay bay ku yiraahdeen ma sha Allah markii okay ku yiraahdeen gabadhii maxay u timid gabadhii adeerkeed dhalay markii u timiday ayaa ma sha Allah waxay ka heshay meeshii iyo joogii iyo magaalada ay timiday gobolkii kale timiday ay ka heshay markii ka heshay waxay ma sha Allah raadsatay shaqo ay heshay shaqo fiican oo macallinimo soo baxday ma sha Allah halkii bay shaqo ka bilowday shaqadii markii ka bilowday maxaa dhici doona talo ma sha Allah si iskaga shaqaysanaysay ee meeshii habi ku tahay ee magaaladii ka heshay ayaa waxay isbarteen wiil u dhashay dalka Morocco ama Maghrib qof sidoo u yaqaano oo lagu magacaabo Naasir ma sha Allah Naasir ay isjeclaadeen markii isjeclaadeen ayaa Naasir wuxuu ka dalbaday inuu ka doonto reerkooda Naasir reerkooga inuu ka doonto markay isbarteen Naasir uu ka helay dabcan yaa ka heli karin gabadh sharci haysata gabadh wax baratay gabadh shaqo u dheer tahay Naasir waxa weeyaan wiil ku soo galay magaalada Tahriib oo u dhashay Morocco ma sha Allah dabcan wuxuu u baahan yahay gabadha mustaqbalka sharciga ku qaadanaya koob waa gabadh shaqaysata waa gabadh guri u kireysan yahay ma sha Allah waxay iskugu toosan yihiin gabadh qurux badan gabadh reer ugu yar 6 wiil la dhalatay ma sha Allah waxa dhacday wiilkii gabadhii inay loof isu noqdaan ma sha Allah markii wuxuu ka dalbaday inuu ka doonto walaaladeed oo reerkooga ka doonto wuxuu la hadlay waxay walaaladeed la hadashay waxay tiri nin saas aan isbaranay wuxuu rabaa inuu iga kiin soo doonto ma sha Allah markuu tiri inuu iga kiin soo doonto rabaa okay bay yiraahdeen hay maado gobolkeega ma sha Allah gobolkii ay ugu tagay gobolkii markuu ugu tagay ay walaaladii halkii isku barteen walaaladii ayaa waa la wareystay markii la is wareystay dabcan waxay ogaadeen inuu yahay yani qof aan sharci haysan qof wadanka ku cusub waxba iskugu toosnayn oo dadkana waa dad meesha ku dhalashay waqti dheer degan way ku adkaatay dabcan nimadii walaashoodii yareedna way tahay ma sha Allah ugu yareed weeyaan dabcan way u qaadan waayeen inuu ninkaas oo kale ka soo doonto waxay yiraahdeen Kariima la hadleen markii la hadleen waxay ku dhaheen maxaad ka shaqaysaa horta intaan Kariima la hadleen waa la wareystay noloshiisii dabcan waxba isma qarinayaan noloshiisii uu ugu sheekeeyay markii ugu sheekeeyay ayaa waxa dhacday inay Kariima la hadlaan markii la hadleen ay Kariima waxay u sheegtay inuu saas yahay iyaguna waa ogaadeen waxay u sheegeen iyaguna Kariima inaanay ninkan aanay marnaba ogolaan doonin sababtoo ah nolosheeda silix bay ku noolaanaysaa bay yiraahdeen hadii guursato ninkan waayo waa dad meesha ma sha Allah shaqo ku haysta dad meesha wax ku bartay dad jaamacad wax ka dhiga dad waawde nolol qurux badan ku nool markaa waxay sameeyeen waxay yiraahdeen ana la soco waan ku sheegnay ninkan kuma ogolaanayno ninteeda ugu yareedna waa tay xaafadda gabadha ugu yareed
hooyada iyo aabahana maadaama nooleen anaga ka mas'uula waa inuu ahaado ninkaagu nin masha Allah tabaarakallah nin magister sita nin waxbarashadiisa noloshiisa gurigiisa yani qof nolol fiican ku nool adigana kugu aamini karno oo yani mas'uuliyadda qaadi kara maaha qof adu shaqeynaysa adiga wax ka sugaya oo nolol silaco on ka warwarno kugu noolaysiinaya way u diideen wiilkii waxay ku yiraahdeen waxaan u sheegi doonaa inaanan marnaba ogolaanaynin adna saas sheekadaas halkaas sheekadaas ku dhamaatay Kariimo way xanaaqday wiilkii nasas lagu yiri Kariimo way xanaaqday way ka hari weyday waxay tiri maya waan jecelnahay waa sidaan maxay idinka galay ana mas'uuliyadda qaadaya maalin kasta telefoon bay la taagan tahay walaaladeedu way wareerisay wiilkii ma aamusayo dabcan qofku dan markuu leeyahay wax kasta uu sameynaya isaguna ma aamuso waan sameyn doonaa waan kana sameyn doonaa walaashin indhayga nuurkooga noqon doontaa wax kasta jecesha waan u sameyn doonaa wax kasta way ii hagaagi doonaan gabadhooda markay u taag waayeen waxay yiraahdeen okay mas'uuliyadda adaa qaadi doona muddo sanad markii la isjiiday sanad ku dhawaad waxay yiraahdeen mas'uuliyaddaas adaa qaadi doona haddii aad diiday okay bay yiraahdeen Kariima iyo wiilkii isguursadeen markay isguursadeen maasha Allah waxa dhacday dabcan nolosha dhaftay markay imanaysaa jacaylkiiyo riyadii beenbeenta ahayd way dhamaanaysaa sababtoo ah wax kasta nolosha rasmiga ah waxay timaadaa marka qofka bini'aadmiga guri kula noolaatid eed baratid aad la noolaatid waqtigaas baad ogaan kartaa inta kale way adagtahay inaad ogaatid waayo inta kale waa iska hadal iyo war beenbeena maasha Allah Kariimo wala aroosay Kariimo markii la aroosay ay isguursadeen ayaa hadda soo baxaysaa Nasir sheekadiisii wiilkan aan ka dhacay sheekadiisa idinka daba geeyo waxa weeyaan qof haba ahaado qof soo tahriibay qof aan waxba haysan qof noloshiisa iska adag tahay laakiin maxaa waxa u dheer inuu yahay qof nolosha ka dhacay wax xumaan la yiraahdo lagu sheego waxaanu maaragtay jarrabin eegi amaaragtay tijaabin ma jirto haddii khamri tahay haddii xashiisho tahay haddii xubuub tahay يعني wax u kala soocan ma laha ما شاء الله إذا سبحان الله وقف وحجعل شعيل بقاضي ويندلاد هايبا وحما أركيسو وش قيسا مرنا وحبي كرسا مرة حي كرنيسا مرة شقينيسا كان شقاق حبا ويدينا ما تاقا شقاق وحما سميو قرقاس ودح فديا مركزت ويقوتي مادا ويكاكتكتا ويقوتي مادا iyo mar meelaha wax ku soo cabeeyo meelaha soo warwareegayo noloshiisi saasay noqotay isaga noloshii ninkii mustaqbalka ay la wadaagaysay ay jeclaatay ay family-geega uga go'day ay wax kasta caashaankiisa u ogolayd nin u samayso horumar gaarsiiso nolol fiican ay u rajaynaysay iyo nolol fiican wada rajaynayeen wuxuu noqday qof nolosha ka dhacsan kiyo sakhraansan oo dhacdhacay yimaada waxa u dheeraatay tii qofkii ay waxa soo dhan u sameeynayay inuu iyada mooyaan shaqo kale leh wuxuu noqday shaqadiisu inuu gabadhaas dilo markasta gabadhaas budilaya gabadhaas bucanaananaya wax alle wuxuu ka haysto ma jirto uu sakhraansan yahay maro xashiishad cabayo noloshiisu waa wax أنا تابن كريم سيسترتيد وجعش هاي أنا ما قرنايو ما يفننت هاي محاكسية مؤمن وحي ريركوجي تلفونك إيه كذا كم خبطت تلفونك ما حرير يصير ريركوجي المرة بتم مشاكل كذا نيوحن لأوجاده يدنا مو بعد ريركوجي ويا بين مدو ولا الكيد ومحمد ليرة هذا أيا مركزته ولا الذي بويدين شري
maxaa dhacay kariimayna ma soo wacdo kariimayna ma soo raadinayso maxaa jira waxay ku dhaheen mumkin kariimo way xanaaqsan tahay maadaama u diidna way naga xanaaqday markii hore u diidnay wax laga yaabaa inay xanaaqday oo hadalkeennii dhibsatay bedelaad way cusub yihiin mala waqtiga ayaa qaaday iska daa ha degdegin sug walaalkii wuxuu sugayba 4 bilood markii ka soo wareegeen walaashood khabar ani ka haynin ayaa waxa dhacday inuu yiraahdo anigu ma sugi kara inta in ka badan waxaan tagayaa gobolkii ku nooshahay ayaan tagayaa waan soo eegayaa waxa ku dhacay walaasheenni way inaga ka masuula hooyadii aabaheed inagay maadaama dhinteen inaga tageen okay bay dhahday wuu yimiday haduu yimiday albaabku soo garaacay tigan ogeyn dabcan markuu albaabka soo garaacay yadan ogeyn ayaa waxa ka fartay